dhammaan madaxda qaranka madaxweyne ku-xigeenka gudoomiyaha gurtida gudoomiyaha baarlamaanka gudoomiyaha maxkamadda sare wasiirada xubnaha baarlamaanka xubnaha gudoomiyaasha axsaabta qaranka diblomaasiyiinta iyo wufuudda dibadda inooga timid shacbi weynaha dhammaan marjarafta joogta ganacsatada waaweyn culimada rayadu warba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib aad iyo aad bay farxad igu tahay caawa inaynu ka soo qayb galno innagoo nabada xasiloon horumar samaynay roobku inoo oo barwaaqo ilaahay ina siiyey cudurka covid-19 adduunka wareeyay ilaahay inoo khafiifiyey nimcada badan ee eebba ina siiyey inagoo ku mahadnaqayna inaynu caawa u dabaaldegayno 61 sannadood oo ka soo wareegay maalintii aynu xornimadeenna qaadanay ku raagi maayo taariikhda aad baa loo qoray oo kutubtaa qortay oo waa laga dheragsan yahay taariikhda hore ee Somaliland si kooban markaanu idhaahdo qarnimada markaynu qaadanay sidii uu sheegay imika baashe Axmed Faarax qaybtii horeba waa la isku diiday shan Soomaaliyeed baa loo socday shantii oo la doona mooyee labadii isu tagay ayaa dawladdii Somaliland markay koonfur tagtay waxba loo ogolaan waayay qayba halka qardoofadii ka dhacday iyo khilaafkii ka dhacay 61 inqilaabka waatii halkan laga dhigay inkastoo uu suurto gelin intii ka dambeysayna qaxar iyo colaad iyo buuq baynu ahayd shan Soomaaliyeed hal doona waa la waayay waayo sharciyada adduunka ku shaqeeyay inaga xooga waaweyn ayaa diidanaa inaguna maynaan lahayn aqoon dheer oo siyaasadeed saylka habka adduunka ragga xooga leh ugu taliyo marka maynaan ku guuleysan in shantiisu yimaadaan maanta sidoo uu sheegay senatorkii Kenya wala waliba halkeedii bay ku nagaatay saddexdii kale labadoodii way joogayna laba dagaal baynu galnay 64kii iyo 67kii oo labaduba culayskoodu ku dhacay Somaliland waayo dagaalka u weyn ee Itoobiya la galay wuxuu ku dhacayay Somaliland oo ugu dhow meesha Itoobiya la isku qabsanayay oo culayska lahaayeen ay tihiin labadii midna guurweyn kamayna gaarin waayo caalamka inaga soo horjeeday dabeetana waxa dhacay dagaalkii 77kii bishii February markii laga soo noqday labadii midoobay oo marka horeba colaad iyo guux dhex yaalay markii adduunka inaga hor yimid ee Ruush iyo Kuuba iyo cidii kale oo tidba ay isugu tagtay Soomaalinimadii loo ordaayay shantii dhabarka laga jabiyay ee adduunka inaga hor yimid nasiib darro dawladii markaa talinaysay may garanin ama may ku dadaalin haddii la soo jabay oo caalamku inaga hor yimid maxaynu yeelaa see loo badbaadaa see labadana yeelaa balse waxay door biday inay aragto inuu reer waqooyigu yahay dad dhib badan oo dawladaha ka soo horjeeda horteed markii ay wada qaateen prime minister iyo madaxweynahaba 67kii dawladdii Cabdirashiid ayaa prime minister reer waqooyiga maxamed xajuure cabdiwaal ka dhigtay 2 sano lagu inqilaabay iyo laga cadhaysan yahay sidee reer waqooyi prime